taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Ibrahim Sheekh Muxudiin ayaa soo saaray amar ka dhana wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya muxuu yahay amarkaasi muxuu yahay khilaafka soo cusboonaaday u dhaxeeya labada dhin waxa shaqadii laga joojiyay agaasimihii waaxda arrimaha dibadda ee wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda federaalka oo ahaa nin gaashaan la ah magaciisa iyo sababta mushaaraadka loogu joojiyay ayaan rabaa inaan kula wadaago idinkuna aragtidiina commentiga nagula wadaaga muuqaalkan Alex Arasiina share gareeya taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Ibrahim Sheekh Muxudiin ayaa soo saaray amar ka dhana wasiirka gaashaandhigga ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo dhammaan xubnaha kale ee hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya taliyaha ayaa soo saaray warqad uu ku sheegayo inaanan la booqan karin xeryaha ciidamada xitaa wasiirka gaashaandhigga oo aan muuqaal laga duubi karin arrintan waxay daba socotaa kadib markii isniintii hore ay la soo dhaafay oo kuliyada jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho isku qarxiyay nin isku soo xiray walxaha qarxa sidaas oo kalena waxa jira oo ay daba socotaa arrintan markii wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya uu booqday xerada General Golden halkaas oo lagu duubay muuqaal hawada sare ah oo kaamirooyinka droneska loo yaqaan ay duubeen kaas oo muujinaya dhammaan xerada iyo waxa dhex yaalo taliyaha xoogga oo ka duulay arrintan sidoo kalena ka taxadirayo in xerada ciidamada sirteeda ay banaanka u baxdo ayaa soo saaray warqad uu ku sheegayo inaanan la booqan karin amar la'aantiisa xerooyinka ciidamada sidoo kalena aanay jirin cid isaga ka amar qaadata mooyaan cid kale aanay geli karin dhammaan xeryaha ciidamada ee ku yaala magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka sidoo kale taliyuhu waxa uu mamnuucay in kaamirooyin lala galo halkaasi oo la soo bandhigo guud ahaan xerada marka laga reebo shaqo kooban oo gudaha xerada laga qabanayo waxa uu mamnuucay in guud ahaan xerada la soo bandhigo gaadiidka yaalo iyo tirada ciidamadaba si aan loo ogaanin arrintan ayaa sidoo kale la ogeysiiyay wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo loo sheegay in hadda kadib ay adkaan doonto in la booqdo xeryaha ciidamada oo muuqaalada noocaas oo kale laga soo duubo dhinaca kale taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa mushaarkii ka joojiyay agaasimihii waaxda arrimaha dibadda iyo habmaamuuska ee wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda federaalka Soomaaliya ninka lagu magacaabo Imraan Ahmed Warsame oo ahaa gaashaanle Imraan waxa uu ka tirsanaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka waxa uu hore u soo noqday taliyaha hoggaanka ee ciidanka xoogga dalka ninkan wasiirka gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa u magacaabay agaasimaha isagoo uu xilka uu ku wareejiyay wasiirka xogeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda federaalka Soomaaliya hase ahaatee taliyaha ayaa arrintan ka hor yimid isagoo oo sheegay inay mamnuuc tahay in nin gaashaanle ah xilkan loo magacaabo kaas oo lagu soo tababaray dalalka Mareykanka iyo Talyaaniga taliyuhu waxa uu sheegay in ninkan looga faa'iideysanayo fursado kale loona baahan yahay in xilkan loo dhiibo qof shibila ama shacaba heshiis dawladda federaalka Soomaaliya ee gashay sanadkii 2019 ayaa dhigaya in laga guuro nidaamkii hore ee midowga Soviet iyadoo oo loo guuray nidaamka NATO sanadkii 2019 ayaa heshiiskaas la saxiixay heshiiskaas waxa uu dhigayaa in saraakiisha ciidamada iyo taliska xoogga awoodooda hoos loo dhigo oo aanay geli karin heshiisyo kaligooda wasaaradda gaashaandhigga ayaana la xisaabtan iyo dabagal taas ayaana muujinaysa in saraakiisha ciidamada aan loo magacaabi karin xilalka noocan oo kale ah balse wasiirka gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa la sheegay in arrintan ka biyadiiday taas oo ugu dambeyn sababtay in taliyaha ciidanka xoogga dalka uu mushaaraadkii ka joojiyo gaashaanle Imraan Ahmed Warsame haddaba waxay muuqataa ama ay u muuqataa in arrintan ay khilaaf cusub ka dhex abuureyso wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka iyadoo la xasuusto in khilaafaad hore ay u dhaxeeyeen taliyihii xilka laga bedelay oo dawaa Yuusuf Raage iyo wasiirka gaashaandhigga haddaba sidee baad u aragtaa arrintan aragtidiina commentiga nagula wadaaga muuqaalkan Alex Arasiina share gareeya waa maasantiin saaxiibayaal